بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهرله إن السيعة في ماكا إننا مدقيدة مسلمة إن شاء الله تعالى ما توحينو كهل دونا قابك أخرسك حانج على دينا لو ذهبوا لمان مشهدة سيدو هو ناكسني وحلو آخريو قابك وحلو آخريو سيدو وفل وحلو آخريو iyo waxa akhriska laftirkiisu muxuu faa'iido leeyahay waxaan ognahay waxa akhriska laftirkiisu inuu aad faa'iido badan u leeyahay waxaad aragtaa qofka wax akhriya in badan inuu yahay qof wax badan oo yacni dhinac kasta wax badan ku waxaan ognahay in bulshada waliba gaar ahaan dhalinyaradu ay ka cabanayaan shayga wax akhriska leeyihiin dib baa naga haysataa wax akhriska ay leeyihiin yacni wax ma akhri karayno seebaan wax ku akhriyna su'aasha haddaan u jawaabo shayga wax akhriska leeyahay horta waa inaad marka hore aad go'aansatay inaad shaygaas aad akhriyayso aad time ku bixiso waa inaad go'aansato in aad shaygan aad akhriyayso wax ka faa'iidayso dhammaantiin markaad wada akhrido in wixii aad ka faa'iida ka qaadato kulli ma aha inaad yacni buug ama kitaab aad akhriyayso faa'iido wada leeyahay wuu isku jiraa in inta kuu faa'iidada adiga ah aad kala baxdo waxaa ku aada qaabka wax loo akhriyo dhalinyarta oo yidhaahdaan hal jeer see wax u akhrinaa hadaan xaashidaas soo saaro way iga hor imanaysaa ama xaashidaas way diidaysaa xaashid buugga labaad ma gudbiyo yacni taa waxaan u jawaabi lahaa waxaad ka bilowda basic xagga horeyso maalinta koowaadi 5 ilaa 10 daqiiqo akhri maalinta labaad 10 ilaa iyo 15 akhri yacni basic wad maalinta saddexaad 15 ilaa 20 daqiiqo akhri naftaada way baranaysaa markaas kadib waxaad noqonaysaa qof akhriska u fiican shayada la akhriyo way furbadan yihiin oo aad u furbadan yihiin ama kitaab wax akhri diiniya ama kitaab maadiya ama wax akhri aqoon guud baad akhri kartaa marka koobaad saynan maskaxdaada u waalanin dad waxa arkaysaa quraan xaafidiin oo qoranayo ni wax ma akhri karayo waa xaq uu isdhigay weeyso waxa kuugu filan oo akhrido quraanka kariimka oo waxaynu ilaahnaba quraanka inuu ka saarnaa markay leeyahay akhriska meesha quraanka waa laga saaraa oo ninka wuxuu leeyahay buugan waxa akhriya physics biology chemistry history waxyaabahaas ku wareeraya war akhris hadaa doonaysid quraanka ka bilow faa'iido laakiin markaad tiraahdo history baan qordayaa english baan qordayaa physics baan qordayaa oo quraanka ay ka timid oo ka hor iman english iyo physics maadaama basic kama dhisnid quraankaaga iyo axaadiistaadii iyo waxyaabihii diiniga kama yacni adigu ma soo akhriid markaa baad leedahay akhrisku iga hor imanaya mana akhri karay ma ku wareer sideen wax u akhri quraanka akhri waa akhri iyo adduunyada ku shaqeynay kadib wax akhrisku ku fududaanay insha Allah ta'ala kale qodob kale muhiimka waxa weeye hadii jeer caloosheena la hadasha waxa jira maanta ka joonaya maanta busud baan baahnay maanta nan qaban baahnay yacni calooshu wax kula hadasho waxay iga siinaysa ma isweydiisay maskaxdaada kula hadasho maanka uu kula lama ka joonayaan iyo buug khaas ay wurdi buug labaad ma raba buug saddexaad ma raba buug afraad ma raba may kula hadasho may sooma yacni maskaxda inaad adigu quudiso weeyaan wixii wanaagsan aad ku rido buugii fiican aad ku rido si u korodho waxayna aqoontaada markastoo wax akhrisan oo markastoo aqoontaada aad u ballaarato wax badan ogaato oo waxa la yiraahdaa dadkan gaaladu waxay naga aaminsan yihiin galbeedku Soomaalida hadaa doonayso inaad wax ka qariso hal trick baa sameeyay Soomaalida hadaa doonayso wax ka qariso buugum soo qaado buugum ku dhex qor ama ninkan aad u dhiibso buugaas kaga dhex qor waa lagu diilayaa ku qor buugana u dhiib buuga xaashidiisa ma akhriyo uu la laabaya saan buu eegay isku dhaafay markaas yacni waa sida ay naga aaminsan yihiin laakiin insha Allah dhalinyaro ahaan inka jiilkeenu inuu bedelaa oo buugaag badan in akhrina buugaagtii noo faa'iido ah inaan akhrino insha Allah ta'ala wax inoo muhiim ah weeyaan dhamaantiin inta ayaan ku soo koobi lahaa mawduucan ugu talagalay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.